السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين وإذن سلامي ميل والبعض الدوك الجعلي إسكال جوتين معلننا مجمعة يكون بيجنت هاي معلمة فرحة معلم توقن يمسن أسبوع النسينا ده معلم كم يدواي هل كان دقة دابنا إنسان أما دقة صعتان وعند قبيلة كبرى فاميلي دمانتين سودو هذا واحد ماشان لقوا عيارة يا أما قداش ذكيرة وحواي دقيقة صوماليات waxaan gudageli doonaa ayaan wareysi toos aan ka qaadi doonaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay kala yimaadeen iyo jawiga iyo dalxiiska iyo jimcaha iyo sidoo uu yahay halka diga daawanaysaan mar labaad iyo mar saddexaad waxa waa saddex YouTube Amra Nakata iyo Khadija Kubra iyo Dangrad Media soo dhawaada dadkiina qurbaha jooga wadankiina waa nabad waa idin dalxiis waa idin barwaaqo waa idin bashbash soo dhawaada kunii koojer soo dhawaada maalinimo wanaagsan السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو هذا ولا مالنا مواناكسن جمع بركة halka aad ka socoto iyo degmada bravo ma tantaadi hada ma tanta bravo maanta waa jimco waxa soo dalciis tagnay taalada dilka darsoon waxaan inaas uga soo baashaan waqti ku qaadanani gabadheeda marka waxaan ku jeeyaa marka saacido istaan oo kale in dadka lamaana iyo ubadkooda ee maalinka jimcaha farxad sii karaan maanta waayo ubadka marka farxad sii maanta birka maal oo qaada farxadaas ما شاء الله dadka ugu dad yar ba meesha taagan dad asxaab kale way joogan soo dhawo abti macaan adeer macaan magaca farxiyo dugsi ma dhigata ma sha Allah maanta aaba soo raacday waxa lagu soo wada dalxiis sidee kula tahay maxaa dareemay inaad banaan ku soo baxdo aad dalxiisto ku faraxsan tahay mise yaabti oo ku faraxsan tahay ما شاء الله سو دواده aad iyo aad ma santiin waxa way gabar yar aad iyo aad u qurux badan ilaahay adeesto family ilmaha dhaleen ilmihiina jawi la soo siiyo oo la soo wadaan dhilay raada ku soo dhawo ku ninkooda aad iyo aad ma santaa saacaad iyo aad maanta kale waa maalin jimcaad marka waxaan rajayaa boqolkiiba boqol in waqti la qaato caruurta waa jiilka soo koraya mustaqbalkana dalkii dadka cuntada leh maanta da farxadiis buri farxada keelay laakiin maanta hadii aad ujeedo macquul ah kadib wax farxada ma qaadaan laakiin mar walba dhaqaaqada in la socdo ما شاء الله waxaad leedahay ilmaha waqti la la qaato si ay maskaxda ugu dhismaan ما شاء الله waxa jimcooyinka kale ee jimcadan maxay kaaga duwan tahay adiga ahaan wallahi jimcooyinka aad iyo aad iga duwan tahay waayo maanta anigu filaheena gabadheedu waxay tiri jimco waay maanta ina waqti la qaadatiya raba ay soo wareejisid si waqti kula qaato darteedaan maanta waqti uu soo bixiyo أبا سوماليات وما شاء الله تهاي هذه أولاد الله يدين بركة iyo xaaskaaga quruxda badan waxaan ku leeyahay soo dhawo jimcaha lamida ciyaartan gadaasheena ka dhacayso dibleeda iyo shiribka iyo ma fahamsantaa qolaba idii dhaqan ay leedahay ani laakiin idii dhaqankooda waa waqtigooda qaataan hadii ka ciyaartan shaqada ma taqaantaa ma way igu cusub tahay laakiin ayaga waxay la tahay ciyaar fiican ay la tahay waqtigooda ku raaxaysta ma sha Allah hay aad iyo aad soo dhawaada maalinimo wanaagsan abti ilaahayna ku xafido tii aabeed ximbaarta Allah ka dhigo aad iyo aad ma santaa السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي هذا دليري الصوماليات هذا إنت إلى ورستو هذا إنت إلى سيدي واتين هل كان نجدا ولا سام حواي دنجراد ميديا يا عمر نكتا أوفيشال لو يوتيوبر وبرنامج كذا وحن كاربا كويدينا هذا حقولته لقى يا بنا الكارين لكن تاريخه وأنا تاريخ قيبة قانا أيضا قيبة تقانتا اللي سوى درسنا قيبة لها وحن كاربا ciyaartaas la dheelayo baan faahinteeda iyo magacaha ay u kala baxdo magacaagana ku bilaabo meesha ka imaadana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo magacaygu ku bilaabaya Cali Maxamed Rooble oo ciyaartan galabta imaaday soo daawaday maalmo badan imaaday waqtiyaal badan daawaday oo kale laba soo daawaday oo dadkan dad oo asal oo ciyaartooda ciyaar baadiyad oo dhaqameed oo ay kana magaalada isku yiqiineen ama baadiyad ku yiqiineen baadiyadii ku yiqiineen ay xamar keensadeen meeshana goob oo baashaal ay galata ay tahay oo galabta jimcadana ay ku baashaalaan marka waxa ku weydiina asal ahaan ciyaartu inay Soomaali leedahay waa la wada ogyahay sax akis jiridkeeda hoose intee ka imaaday dhaladkeeda hore waxay ka imaaday
dadkii hore ay ciyaari jireen gobol kasto waa dheelaan ciyaar kastana dad kastana ciyaaray la imaadaan oo dhaqan ay la imaadaan dadka isku dhaqan ma aha qabiil kastana dhaqan oo la yimaado waa sax wala wada badan yahay waa la kala duwan yahay ilaahay baa hadda iskala kulli laakiin soo walaalo Soomaaliyeed sax waxaan ka rabaa inaan ku weydiiyo ciyaartu meeqa magac ay leedahay waa adiga waa badiin adiga magacaashada la tiragoob ma karo wax la tiragoob karo ma aan marka ciyaaro badan meeshaan lagu ciyaaro qof kasta ciyaartay taqaano inta aad ka taqaantid caweys oo kale waa jira shir waa jirta birta bulli mid la waa jirta qof kasta ciyaartay taqaanid meesha marka waa iska badin oo la tiragoob ma karaade adi ma dhashay wali aniga waa iska ma dheelo adiga waa iska daawadaaday waxa waaye aniga inta kale waa dhaantaa oo waa sharci kartaa aniga hadii kor liga weydiyo xada hadii dhaqanka la iska dhaawaaday ma sha Allah marka qofta dina qaan hadii dhaqan in la iska dhaawado u banaanta waxa kale oo ku weydiina anaga hadda xamara joognaa sax ciyaarta asalkeeda waxay ka imaadaa sax sidee marka aan kula tahay oo dheelitaankeeda camal ma ka wada masay baadiyahan lagu dheelay camal baadiyaha muqdisho xamar magaalada صح baadiye dad baa keenay inay keento taariikhda ciyaartu ay banaanka soo baxdo ama ay dhalatay ama la dhigi karo banaanka ay imaado aniga horta waa iska yarnaay waa qarnigeena waa gaaban yahay marka qarni ka hor yaana keenay marka qarni zamanti waay oo waqti hore soo jiri jirtay waqtiga imaadana hadda aniga waa yarnaa oo sheegi ma karno maahan xamar waxay ku imaaday dad baa xagga keenay kadibna waa lala baray marka dad badan oo xagga isku yaqiinay oo xamar isla yimaaday oo ka baad ciyaartan xagga geysanina oo banaanka keenina ay dhaheen xataa waa jiraan waxa waaye inaad waxa gobolada ka dhacay muqdisho la keeno oo la barto sharafta wada soo meel waliba aad joogto sharaftaada kula jirto sax soo dhawo magacaaga waa dhaway magacaygu waa Mahad Cali Shariif Aadan waxaan muqdisho ku dhashay laakiin barbaarista inta badan aan gobol baa ku soo qaatay macnaha waxaan maleynaa bajaajlada bajaajda balciisna ku jirtaa aad yawaan shaqeynaya aad aslaanta daafur dadku isku dhex qarataan amal aad ciyaartaas dibleeda iyo shirka iyo balciiska iyo damaashaad dadku ay wada joogaan aad ma kala mutaaga duwanta misoo istaamo wallahi waa iskaga mid meelaha qaar ay gobolada xataa way ka jirtaa jimcihii sidii ciiday u badan yihiin waxa waa dheelahan waa wax oo hidii dhaqan oo Soomaaliyeed ay u leeyihiin mid waa saar midna waa qabowey midna waa waalo adii way tirbadan yihiin dheelaha aadi marka waa wax Soomaaliyeed oo ay hidii dhaqan ay u leedahay ma sha Allah waanu ku faraxsanahay inay iska damaashaadona ismadadaaliyaan Soomaalida war u sii wada baandheel waxa kale shanta maalin kala shaqeysa walow jimcadu ay tahay maalin la siinaa xaaladda shaqada iyo jawiga kale markii aad ku jirto la siinaa jimcadu ay tahay wallahi horta jimcihii dad badan hadda waa u jeedaa meesha hadda aan ku sugannahay waa daljirka Dahsoon ay inta badan ay dadka iskugu imaadaan sida xeebta leeda oo kale sida jasiiro oo kale dadka meelo badan sida booqasho oo kale adi magaalada jabigeeda jimcihii waa isbedelaya sidii hor ma ahaanayo sida dhaqaale ahaan shaqo ahaan jabi baashal ahaan intaba jimcihii hadii la gaaro uu isbedelaa magaalada ma sha Allah waa kalsooni baan ku qabnaa dalkeena waxaan doonaynaa nabad insha Allah dadka qurbaha joogo waxaan ugu baaqi lahay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed ama dhalinta Soomaaliyeed kalsooni baan qabnaa dalkeena waa ku kalsooni qabnaa waanu isku haleyn karnaa amnigiisa wax waliba wixii la soo gudboodaanana waa iska celi karnaa dal iyo dibadna uma baahnin dhaqaalaha muqdisho ka soo baxay gobolada ka soo baxay ugu filanada aad badna waa leenahay wax waliba inoo soo degaan ma sha Allah Allah noo barakeeyo شرفه شقده شرف شحاده رجينا على ما نجا طيب كم مش ما من سنه يكون سنه انا اكتب حاجه كما هذا في امي اللي مشاكل هذا الله يكون سنه مرات
daawasho wanaagsan kuwaan balwada haddii geyga farxadda maanta maalin farxad waa maalin jimceed waaye maalin ciid islaam soo dhawow kulligood
Thank you.